بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال meel walba aad inaga daawanaysaan kuna soo dhawaada warka Royal oo idinkaga imaanayo xaruntiisa dhexe aan ku leenahay magaalada caasimadda ee Muqdisho warka waxa in la socodsiinaya hadduu Rabbi Maanigo Cabdiraxmaan Sida Xasan Cabdiraxmaan Talante madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjirayaasha dalalka Australia iyo waliba Canada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjirayaasha cusub ee dalalka Australia iyo waliba Canada ee Soomaaliya u fadhiisanaya agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa ka warbixinaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu maanta ka gudoomay warqadaha aqoonsiga danjirinimo danjiraha u matali doona dawladda Australia Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Christian Fellner madaxweynaha iyo danjiraha markii warqadaha aqoonsiga laga gudoomay kadib waxay ka wada hadleen sidii loo abuuri lahaa xiriir diblomaasiyadeed oo ku qotomay iskaashi iyo wax wada qabsi oo yeeshaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dawladda Australia waxyaabihii madaxweynaha iyo danjiraha ay ka wada hadleen waxa ugu muhiimsanaa sidii dawladda Australia ay kaalin mug leh uga qaadan lahayd dadaalada midowga Yurub oo qayb ka tahay oo ku bixiyo amniga iyo dawlad dhisidda Soomaaliya iyo sidoo kale taageerada maaliyadeed ee European Union ku toos u siiyo dawladda Federaalka Soomaaliya sidoo kale madaxweynuhu wuxuu warqadaha aqoonsiga maanta ka gudoomay danjiraha dawladda Canada u fadhiyi doona Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Marwo Lisa Stadelborg danjira Lisa waxay madaxweynaha soo gaarsiisay salaan iyo fariin ay uga siday madaxda iyo dawladda Canada madaxweynaha iyo danjirahana waxay ka wada hadleen sidii loo adkeyn lahaa loona dardargelin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya dawladaha Canada iyo Soomaaliya oo soo jireen ah runtii sidaan ognahay Canada iyo Soomaaliya waxa ka dhaxeeya xiriir taariikhi ah Canada waxa ku nool jaariyad Soomaaliyeed oo ballaaran waxayna ka mid tahay dalalka gacanta u fidiyay Soomaaliya sanadihii ay duruufaha ku jirtay inkastoo Canada ay 30 sano u dambeysay kaalin mug ku lahayd dadaaladii beesha caalamka ee Soomaaliya loogu gurmanayay iyo taageerada arrimaha bini'aadanimada haddana danjira Lisa waxay runtii xaqiijisay in dawladda Canada ay haatan diyaar u tahay gacan muglana ka geysanayso sidii loo abuuri lahaa taageero maaliyadeed oo ay dawladda Canada ku bixinayso arrimaha horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka ee dhammaan geeyiga Soomaaliyeed